السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد السلام أمد الصومالية مeel kastoo joogtaan rabbi waxaa ka baridaan oo ku ducaysataan oo salaad walba aad ilaahay ka baridaan in qoftan ilaahay idinka qabto naagtan ilaahay bulshada Soomaaliyeed muslimiinta ka qabto waa cadawad qoysaska Soomaaliyeed loo soo diray waa qofan ilaahay subxaanahu wa ta'ala aqoonin waxaad ku aragtaan xijaabka iyo khamaarka yarka ee madaxa saaran laakiin u malayn maayo qoftan inay diin islaam haysato waa qof gaalo la shaqayso weeyaan waa qof bulshada inay kala furfurto loo soo diray qoysaska islaameed inay isku dirto iyadii baa qoys yeelan weyday iyadii baa nin iyo reer yeelan weyday waxay shaqo ka dhigatay inay ummadda Soomaaliyeed iyo qoysaska Soomaaliyeed dhex gasho inay isku dirto ragga Soomaaliyeed inay ubadkii ka qaado gaala siiso bal adduunka ilaahay waxyaabaha ay gabadhaasi ku hadlayso xitaa ilmaha markuu qurbaha kaaga yara qaali noqdo badanaa waa la carartaa oo waxaad geysaa wadankii meesha ugu dhow aad istiraadagee waa wadanka Soomaaliyeed taasna waxaad u geynaysaa wax weyn oo ubadkii ku badbaadiyo oo ilaahay kugu badbaadiyo ayaa raadinaysaa laakiin qoftan waxa ay shaqo ka dhigatay inay ummadda isku dirto ummadda ilaahay bay isku diraysaa ummadda ilaahay subxaanahu wa ta'ala bay isku keenaysaa bulshadii bay madaxa isku gelinaysaa qoysaskii bay isku diraysaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala kama baqayso hooya ilmaheedii la carartay oo wadankii la aaday waxay taagantahay waa soo celinayaan waa tii Soomaaliya berigii ay ka daba tagaysay waa tii Soomaaliya aaday qoysaskii ubadkoodii la cararay waa tii ka daba tagtay waxa loo soo dirsaday oo kaliya waxa way ummad Soomaaliyeed isku dirto maxamed buskud iyo muniira gabadha isku dirta waa iyada naagta iska hor keentay waa iyada inkastoo reerkaasi ay markii hore sii kala socdeen haddana qofka ka faa'iideystay qofta waa iyada horta muniira waa doqon hadalkeedana ka gartay inay doqon tahay naag la dira faa'iido male naag la diro qoyskeeda lagu dira faa'iido male maanta waxa khatar ku jira maxamed buskud iyo muniira ilmahooda yarka khatar ku jira inay gaala qaataan marka hore waxa looga dhigayaa inay iyada haysanayso laakiin ma haysanayso waad arki doontaan waxa ay ku samayso waxay tiri Jarmalka ka soo guur Sweden soo deg Sweden waa meesha qoysaska Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta awlaad laga qaato waa meesha ugu daran ee caruur lagu qaato Jarmalka ka soo kaxaysay waxay u sallaxaysaa gaalka inay marka hore wadanka gabadhan soo dejiso ninkii naagta isku dirto kadibna markii hooyada ilmaha loo dhiibo la yiraahdo hooyadii muxuu ahaa ilmaha ma hayn karto fid mother ma aha oo ma hayn karto waxyaabo badan oo qofka looga daba yimaadana de iyadaaba internet ka sheegtay waxyaabaha badana qofka loo isticmaalo waana sida ay yeeli doonto wiilka yarka ee maahir ilaahay gaalada ka qabtay maxamed ma uu fakirin muniirana ma fakirin hadii aqli leedihiin muniira iyo maxamedow ilmihiina yarka intuu gacantiina ka bixin isku soo noqda oo gurigiina reerkiina haysta waayo maahir gacanta uu ka baxaya sida arkayo naagtana marka hore waxay iska dhigaysaa inay hooyada caawinayso kadib hooyadii marka ay ka soo wareegto waxay ku soo wareegaysaa awlaadii bal waxa ay sameynaysaa hooya ilmaheeda la carartay dhaarta iyo hanjabaada naagta ka dhacaysa dhageysta muniira iyo maxamed waa jannay tiri laakiin waxaan soo wado hooyo kale u dhaaranaysa oo Soomaaliyeed maqla qoys Soomaali oo baraha bulshada ku jiro oo habeen iyo maalin aan daawano farxadu ma ogala maqla farxadu ma ogala laba qoys oo farxaya ma arki karto waxaan maqli jiray mudul gubtay mudul taagan kuma farxo heeri dhaarta ka socota naagtaas iyo qoysku waxa ugu dhaw waxa kaaga daran naagaha soo wacaya ee hintiga siinaya ama ra'yiga siinaya ee ku diraya maxay ka helaysan qoys islaameed markaas ku dirtaan gabdhow naag way soo wacaysa leedahay dhageysta dad isqabo ma arki karto ma arki karto طيب دي حاسميداس tan soo wacaysa waxay u soo wacaysaa war هيري